maanta oo taariikhdu ay tahay 13 bishii labaad 2020 shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dhacdo la yaab leh oo ka dhacday wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka albaabka laga soo gelayo maanta waxa dhacday maareeyaha golaha murtida iyo madadaalada abwaan Cabdulqaadir Cabdi Yuusuf iyo odayaashii waa bari iyo guddigoodii oo isla socda in aanu tagnay wasaaradda dabadeedna ciidankii meesha joogay ninkii madaxda u ahaa in uu yiri maareeyuhu ma geli karo wasaaradda oo amar la ayaa laga bixiyo wasiirka warfaafinta amar ka bixiyay wasaaradda inuuna gelin arrinkaas wuxuu noqday mid lala yaabay mana aha mid ku gaar ah maareeyaha mid gaar u ah ma aha waxay la mid tahay fanaaniinta Soomaaliyeed oo idil mid isbaara looga dhigtay wasaaradda warfaafinta oo wasiirka warfaafinta uu isbaarada u dhigtay waxa weeye arrin la yaab leh waxa weeye arrin aan la qaadan karin waxa weeye arrin aan la aqbali karin waxa weeye arrin aan noo cuntami karin sida daraadeed waxa horay u jiray dawladdu waxay bixisay lacag waxa la yiri waa bari qalab loo soo iibiyo waxa nagu maqalaa in qalabkii la soo iibiyay dabadeedna markii la keenay sida nagu maqalaa wasiirku uu qol ku xirtay qalabkii oo waa bari la soo gaarsiin intaana horay baan u qabnay iyo in kale oo badan oo aan rabin inaan meeshan ka sheego waxaan leeyahay madaxweynaha iyo prime ministerku waxaan annagoo fanaaniintii waa bari iyo madaxdoodii ah wasaaradda warfaafinta waxaan ku aragnay ha ku arkeen baan leenahay guud ahaanna fanaaniinta waa bari arrinkaas aad bay uga xun yihiin fanaaniinta Soomaaliyeedna markay maqlaan dhagahay taagi doonaan birri haddii ilaahay yiraahdo ama saacadaha soo socdana hoobalada waa bari oo dhan arrinkaas way ka hadli doonaan fadhi shir weyn bay isugu imaan doonaan insha Allah taala ma aha wax 3 iyo 4 iyo 5 qof ku kooban ma wax maareeyaha ku koobanna ma waa wax nagu wada dhacay waa wax ku wada dhacay fanka Soomaaliyeed ha xaalkanagu meel aad halis u ah ayuu marayaaba ku iri annagu dawladii kacaankana ma aanan ridin waa tilmaan baan siinay tanna hadda ma rabno inaan ridno waxaan rabnaa inay hagaagto oo qaldaadkeeda saxdaan rabnaa laakiin inay dhacdo oo fawda dhacdo dalka ka dhacdo ma rabno umana baahnin waana sidoo u sheegay warka waxa kale oo hadda wadwada waa antarac waa warku waa intuu sheegay abwaanku horta anigu dadkii la socdaan ka mid ahay dhibku markuu saaka dhacaayay nuguna dhacaayay ee isbaarada aan ku dhacaynay isbaaradana muddooyinkan waa isbaaro lagu socotay eedo hobalada waa bari ku socotay fanaaniinta ummadda Soomaaliyeed oo lagu haayo wasaaradda warfaafinta oo na ku haayo wasiirka wasaaradda warfaafintu geed asagoo ugu gamban sidoo rabo oo ka yeelo soo rabo isaga isbaareesto isbaaradaas waa nagu dhacday isbaaradaas waxay ku dhacday hadii alla ku roon yahay meel badan ay ka jirto hadda wada tilmaami ma karna laakiin inta nagu cusbeedaan sheegaynaa maareeyihii golaha murtida iyo madadaalada isbaaradaas taasoo horta saaka ku dhaco waa la isbaareesta xaquuqdiisa la isbaareesta jiritaankiisa la isbaareesta dadnimadiisa la isbaareesta wuxuu ahayo dhamaan la isbaareesta meesha maareeyuhu sidaas ku naqdana hoballadii waa bari oo isagu oo xukumay ayakana iyo fanaaniinta ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan xaquuqdoodii waa la isbaareestay isbaaraa loo dhigtay waxaana isbaareestay wasiirka warfaafinta isbaareestay madaxda dawladdu waa u jeedaa saad rabtiin ka yeelahe waa dayaysiin marka sababtu waxay tahay annagu ma naqaan maareeye wasaaraddiisii laga celinayo waxa sheegi doona sababta markii la iswaraysto oo dawla iswaraysato waxa sheegi doona wasiirka warfaafinta hanuuninta wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka khilaaf miyaa ka dhaxeeyay maareeyaha iyo wasiirka wax ka dhaxeeya garan mayno haday wax ka dhaxeeya haday jiraan ma wasaaradda laga celinaya waa laga wada hadlayaa
ها معها wax kasta oo jira in maareeyaha laga celiyo albaabka wax aqliga gali kara iyo wax sharcigu qabo iyo wax la isu sheegi kara midna ma aha wax la yaabo weey ayaamahaana waxbaan tabanaynay haddaan fankas iyo suugaanta Soomaaliyeed nahay oon hobolada waa birinahay waxbaan tabanaynay ma malaysanayn maareeyahayni guud waa biri in la yiraahdo aqalkiisi meeshu asagu lahaay oo xafiiskiisi in laga celay ma malaysanaynin maanta ay dhacday waxay u taalaa dawladda sare u taalaa taas dawladda sare u taalaa waana isu imaad doonaa fanka Soomaaliyeed waa isu imaad doonaa haddii Ilaahay idan kale maaragtay haddii cid naga qancisa aan weyno حتى سوغان تو استعمال دونا والسلام عليكم هدي أن كجوابه أرنكن كسابسن waxa ka qabsaday maanta wasaaradda warfaafinta maareeyaha tiyaatarka qaranka run ahaantii waa arin aad iyo aad looga xumaado in maareeyihii wakaaladda murtida iyo wacyigelinta laga hor istaago inuu galo wasaaradda warfaafinta oo ah wasaaraddiisii uu muxuu ahaa madaxdeeda ka mid ahaa arrinkaas dama jiro ma dhahayo iyo hadduu jiro iyo ma dhahayo oo abwaanadii ugu waaweynay hobolada waa bari ayaa muxuu ahaa warkaana soo gaarsiiyey waxaan leenahay aad iyo aadan uga xunahay run ahaantii haddaan nahay golaha abwaanada Soomaaliyeed waana cambaaraynaynaa waxa uu ku kacay wasiirka warfaafintu mana aha wax wanaagsan maareeyaha hadduu ruqsayn karo inuu ruqseeyay ahayd laakiin inuu yiraahdo soo ma gali kartid wasaaradda taasi waxa weeye arrin la qaadan karo ma aha run ahaantii haddaan nahay golaha abwaanada Soomaaliyeedna anu golaha gudoomiyihiisa aan ahay goluhu guddi fulin uu leeyahay wakiilada dibadda joogu leeyahay kuwa gobolada joogu leeyahay markii aan war arintaas ku saabsan aan soo saareyno waxaan ku qasbanahay inaan dhamaanteen wada xiriirno sida ugu dhaqsaha badan ayaana ula xiriiri doonaa xubnaha golaha abwaanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hobolada waa barina waa garab istaagaynaa si cad ayaan u garab istaagaynaa waxaan u soo jeedinayaa muxuu ahaa xukuumadda Soomaaliya ee maanta dalka maamusha in la soo celiyo madax banaanidii wakaaladda murtida iyo wacyigelinta oo hore loo oran jiray wakaaladda murtida iyo madadaalada waxaan mar kale codsanaynaa si dhibkaan oo kale uusan mar dambe u dhicin in la soo celiyo madax banaanidii wakaaladda murtida tiyaatarka qaranku wuxuu ahaa tiyaatar madax bannaan budgetkiisu uu madax bannaan yahay hawshiisa uu madax bannaan shaqadiisa wata isku dhacaan iyo ceebtaan oo kalena ma dhici lahayn haddii madax bannaanidii ay shaqaynayso sidaas awgeed waxaan mar kale codsanayaa in muxuu ahaa arrintaas muxuu ahaa laga foojignaado sidii aysan mar dambe u dhici lahayn oo la soo celiyo madax bannaanidii wakaaladda murtida iyo wacyigelinta warka golaha abwaanaduna wuxuu soo bixi doonaa wiiga cusub insha Allah taala aad iyo aad u mahadsantiin